qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo ku midoobay kambaniga Fayadhowr ayaa bilaabay olole nadaafadeed oo lagu hagaajinayo degmada Gurceel. dhalintan oo isu tagtay ayaa istustay wax ka qabashada qashinka dhex eegaaga Gurceel waxayna bilaabeen olole nadaafadeed oo qashinka looga qaadayo magaalada. bulshada Gurceel qaarkood ayaa ka mahad celiyay dadaalka dhalinta ay ka bilaabeen Gurceel waxayna maamulka degmada ka dalbadeen sidii dhalinta loo garab siin lahaa. xasan axmed xaaji ayaa dhalinyarada uga mahad celiyay dadaalka ay isku xilqaameen. meeshan waxaan rabaa inaan mahad ballaaran uga celiyo kambaniga Fayadhowr oo degmada Gurceel laga aasaasay oo dad dhalinyaro ah oo isxilqaamay ay aasaaseen. horta way ku mahadsanyihiin marka koobaad iyo mar saddexaad. marka labaad waxaan rabaa inaan maamulka degmada halka fariin uga diro qof kasta oo dhalinyaro ah oo bilowda barnaamij waxaan rabaa dad dhiirigeliyo abaabula. marka waxa kale oo rabaa inaan ka codsado maamulka degmada iyo taliyaasha iyo laamaha amniga dhammaan inay ku dhiirigeliyaan kambanigaas si uu shaqadooda u sii wadi lahay ummadda Soomaaliyeed ugu adeegi lahay caafimaadka iyo horumarka iyo deegaankan uu ka shaqayn lahay. marka saddexaad oo kale waxaan rabaa in halkan uga sheego hay'adaha deeq-bixiyaasha iyo beesha caalamka inaan gaarsiiyo in WHO iyo WFP iyo RCRC si degdeg ah inay kambanigan wixii ku qaban karaan oo siyaadaha ay ku soo siyaadiyaan iyo aragtiyahooda iyo baahiyaha ay macnaha ku soo kordhi karaan oo kale. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo degmadan degan Gurceelna si degdeg ah inay u dul istaagaan si ay wadankooda u horumarin lahaayeen oo hadda nadaafadan iyo uga shaqeeyeen barnaamijyadan. inaan ninkuna waxaan ugu sii boorinaa inaan sii wadaan meeshina ka sii wadaan oo niyad jamin oo saaxiibkay xoog weyn oo garabkayga gacanteeda bidix taagan yahay. marka waxaan rabaa iyo walaalkay Faarax oo asna gacanteeda bidix taagan in ay say barnaamijkan suxul saareen ummadda Soomaaliyeed. waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah in ay macnaha awood u geliyaan oo juhdi iyo maxaa daafurnaan iyo suwaaltinimo iyo isku tanasul iyo isku aaminimo ay uga shaqeeyaan deegaankana. waxaa laga rabaa dadka deegaanka oo annagu aan kamidna waxaa waajib naga saaran inaan qashinka meel isku keeno aruurno maadaama kambani waayaan oo ay saaneen ayaguna ay sanadkan qarsan ka ramaysa ay awoodooda iyo dhaqaalahooda iyo juhdiida ay ku aasaasteen. intaasaan markaa codsanayna hay'adahan waxaan u sheegaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in ay si degdeg ah ay baahida meesha ka jirto oo deegaankaas ka jirta ay ka qabtaan. maamulka degmadana waxaa laga rabaa dhiirigelin iyo dul istaag iyo inay ku dhiiriyaan dhalinyarada walaalaheena oo dumar leh oo maxaa walaalaheen leh oo wiilal leh oo gabdho leh. marka waxaa laga rabaa idinka inaad sidoo kale insha Allah uga shaqeeyaan. warbaahintana waxaa laga codsaa meel kasta oo aragtidooda ay gaari karto dadkan u jeeda nadaafadda iyo isxil saaray iyo bilicda magaalada inay soo celiyaan si degdeg ah wax looga qabto. waayo haddii nadaafad la arkin waxa way caafimaadku aad u nusqansan yahay. marka ragga Soomaaliyeed waa mahad celinaa Faarax iyo ninkii laado aadan u mahad celinaa. qaar ka mid ah bulshada Gurceel ayaa sheegay in magaalada uu qashin dhex eegaaga isla markaana loo baahan yahay in wax laga qabto. dhammaan waxaan islaamayaa ummadda islaamka waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala iyo gudoomiyaha degmada Gurceel xoog weyn iyo tiimkiisa aan u mahad celinayaa nadaafadda Fayadhowr. wareen waxaan u mahad celinayaa xoog weyn iyo tiimkiisa oo ka qayb qaato bilicda degmada iyo nadaafadda ay wadaan. waan ku bogaadinayaa waxaan leenahay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadana ka qayb qaataan. teeda kaleeto waxaan ka digayaa dadka qashinka meelaha ay ku gubaan ama meelaha ay ku xanaanayaan aysan lahayn ee magaalada daafeeda ku daadinayo annaga anshaxaan lama ogolo ma doonayno. xoolihii bacay ku baaba'een nadaafad darra magaalada daafeeda ka jirto hanalka aruuriyo qashinkaas hanalka anshaxay sidii xoog weyn oo dadka qashinka uga aruuriyo kara looga aruuriyo. maxamed liibaan qaasin oo ka mid ah dhalinta dhexda u xiratay qashin qaadista Gurceel ayaa sheegay in si isku tashi ah ay isugu xilqaameen qashin qaadista. bismillaahi raxmaani raxiim. gaadiidka meesha taagan annaga iskale aniga xoog weyn waxaan isu xilqaanay naftanaga iyo maalkaba u xilqaanay magaalada nadaafadeeda anagoo gaadiidka iyo maxaa tiraahday xoogga iyo shaqaalaha intaba u beelnay. waxaana naga gacan siiyey gudoomiyaha degmada Gurceel iyo gudoomiye ku-xigeenka. dhalinyaradan ayaa u midowday sidii Gurceel ay uga qaadi lahaayeen qashinka magaalada dhex eegaaga isla markaana ay wax uga qaban lahaayeen nadaafadda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo.